si lama filaan ah ayaa argagixisada al-shabaab weerar culus waxay ugu soo qaadeen deegaanka Daarunimca oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana socda dagaal aad u xoogan yaa ku gacan sareeya dagaalka warbixintan aynu daawadeel ku eegi doonaa nagu soo biir oo muuqaalka shargalay si uu dad badan u gaaro mahadsanid wararka ka imaanaya deegaanka Daarunimca ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxay sheegayaan in haatan uu ka soconayo dagaal xoogan kaas oo u dhaxeeya ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya kuwa deegaanka iyo argagixisada al-shabaab dagaalka oo soconaya ku dhawaad saacad ayaa wararku waxay sheegayaan in uu ku bilowday kadib markii argagixisada al-shabaab ay weerar culus dhowr jiho uga soo qaadeen deegaankan waxa uu ku bilowday qaraxyo waxaana sidoo kale xigay weerar toos ah sida ay inoo xaqiijiyeen qaar ka mid ah saraakiisha xoogga dalka ilaa hadda lama oga khasaaraha soo kala gaaray dhinacyada dagaalamaya hase ahaatee wararku waxay tilmaamayaan in al-shabaab ay la kulmeen difaac adag waxay doonayeen in deegaanka Daarunimca ay ka dhigaan wixii ay ka sameeyeen deegaanka Coosweyne hase ahaatee waxa ay la kulmeen difaacyo ka horeeya halkii ay ku wajahnaayeen inkastoo dagaalka hadda gudaha deegaanka uu ka soconayo haddana waxa la leeyahay ciidamada waxay si weyn isaga caabinayaan weerarka al-shabaab oo waxa u suuragali la argagixisada inay gaaraan hadafkii ay ka lahaayeen weerarka qaraxyo ayaa la maqlay qaarkood maleeshiyada ayaa isku qarxiyay deegaanka sidoo kalena gaari ayaa la sheegay in loo adeegsaday qaraxa ama laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo dagaalka uu ku bilowday ciidamo gurmad ah oo ka tirsan xoogga dalka ayaa ku sii qulqulaya deegaanka Daarunimca kuwaas oo garab weyn siinaya ciidanka deegaanka iyo kuwii kale ee xoogga dalka halkaasi ku sii sugnaa wararka qaar waxay sheegayaan in la arkayo diyaarado dagaal hase ahaatee weli wax duqeyna ma aanan dhicin al-shabaab waxay isku dayayaan in deegaanka Daarunimca ay qabsadaan laakiin waxaa difaacada kala hortagaya ciidanka xoogga dalka oo mar walba diyaar u ahaa inay ka hortagaan dhagaraha ay soo maleegaan argagixisada weerarkan waxa uu ku soo beegmayaa xilli dhawaan al-shabaab ay Coosweyne weerareen sidoo kalena ay u maleeyeen ama ay ku faaneen inay waxyeelo xoogan soo gaarsiiyeen ciidanka xoogga dalka taas beddelkeeda waxay qariyeen khasaare ugu badnaa ee iyaguna deegaankaasi ku soo gaara mudug sidoo kale dhawaan argagixisada al-shabaab saldhig ay ku sirsanaayeen ayaa weerar lagu qaaday halkaas oo in ka badan 200 oo maleeshiyada lagu dilay sidoo kale waxa uu weerarka imaanaya xilli madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku sugan yahay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxaana madaxweynaha halkaasi uu ka wada abaabul xoogan oo ka dhana al-shabaab isaga oo isku dabaridaya ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ama macawisleeda kuwaas oo la doonayo in jihooyin badan ay weerar ka qaadaan al-shabaab si ay culays isaga yareeyaan ama u mashquuliyaan dawladda waxay isku dayayaan iyaguna inay inta soo urursadaan ay soo weeraraan xarumaha ay ku sugan yihiin ciidanka militariga deegaanka Daarunimca ma aha markii ugu horeysay oo weerar sidana lagu soo qaado hore al-shabaab 2 jeer ayay u soo weerareen labadii jeerna iyaga ayaa khasaaro la kulmay oo xitaa labadaasi jeer mid kamid ah waxa si gaar ah oo kaliya ula dagaalamay ciidamada deegaanka ama loo yaqaan macawisleeda kuwaas oo iska caabiyay oo dib u riixay argagixisada walow ay masaajidii iyo goobihii cibaadada ay burburiyeen markii ay deegaanka gudaha u soo galeen oo ay la dhaceen madaafiic sida baasuukiyaal iyo wixii lamid ah falanqayaasha iyo qubarada ammaanka waxay sheegayaan in tani ay tahay rafashadii ugu dambeysay argagixisada ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka iskaashanayana mar walba ay gaari doonaan guulaha iyo hadafka ah in al-shabaab dalka laga xoreeyo inkastoo ay jiraan wili fikradaha al-shabaab dad aaminsan ama xitaa si dadban u taageera haddana waxaa waajib ah oo saaran guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo waliba warbaahinta iyo suxufiyiintaba in mar walba ay xaaladan oo kale markii ay tahay ay dhinac ka noqdaan yacni ay la saftaan ciidankooda qaranka iyo dawladooda maadaama warbaahinta iyo shuruucda saxaafadda aanay dhigeenin in cid dalkaaga burburinaysa aad garab u noqoto ama dhexdhexaad aad ka noqoto daawada maxay kula tahay aragtidaada fadlan hal eray oo hoos ku soo qor oo aad ku dhiirigelinayso ciidanka xoogga dalka wixii ku soo kordha dagaaladan xaqiiqdooda iyo wax kasta oo dhaca dib ayaan idin kala soo socodsiin doonaa muuqaalka share garay si dad badan u gaar mahadsanid